السلام عليكم دمان ومدى مسلمين تا رمضان مبارك waxaanu daqiiqadaad kooban yara iftiimin doonaa fadliga ay leedahay bisha ramadaan acmaasha la qabtaa way ka fadli badan tahay acmaasha la qabto waqtiyada kale waxaana ka mid ah acmaasha cumrada la cimraysto inta lagu guda jiro bisha ramadaan waxaana u dhigantaa xaj sida uu noo sheegay suubanaheena ama nabigeena sallallahu calayhi wasallam sidoo kale waxaa ka mid ah acmaasha sadaqada la bixisto inta lagu jiro bisha ramadaan adigoo qof afuriya adigoo qof habeenkiisa horsiiya ama se adigoo dawsaad u garanaysaanba sadaqada way ku jirtaa sidaynu hore u soo xusnay adigoo qof sadaqad siiya waxaana ka mid ah acmaasha fadliga badan leh ramadaanta salaada hadday noqoto taraawiixda ama salaatuleysha in la badiyo sidoo kale waxaa soo gelaya qur-aanka oo la badiyo sidoo kale waxaa soo gelaya ducooyinka iyadoo la ducaysto inta lagu jiro ama lagu guda jiro bisha ramadaan ilaahay hayna siiyo fadliga bishan barakaysan ee ramadaan si nabadana haynoogu dhameeyo bisha ramadaanta waxaa sidoo kale ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay adduunyada ka qabto cuduradan iyo waxyaabaha kusoo kordhaya oo xadeeyo ilaahay wixii muslimiinta ah amayna ka dheeg nooga leexiya inta gaaladana uu kusoo hadeeyo insha allah fadliga bisha ramadaan halka kuma joojin doono waynu sii wadi doonaa inagoo soo gudbinayna ama anagoo idiin soo gudbinaynaa ama anoo soo gudbinaya axaadiista sidoo kale waxaynu barnaamijkan intuu socdo kusoo qaadan doonaa fadliyada ugu badan ee bisha ramadaan leedahay intana waa hordhici aad baad u mahadsantihiin